markala soo dhawaada asxaabta waa anigoo ah macallin Ismaan Guray iyo kooraskeeni taxanaha QuickBook ee cashirkeeni 19aad waxaan muuqaalkii ka horeeyay kaga soo hadalnay qaabka macaamiisha ama customerska wax loo deymiyo. Hadaba waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa qaabka customerska ama macaamiisha lacagta looga qaado ama receive a payment looga sameeyo. Intaynan receivement aan sameyn ama aan qofka customerka lacagta aan ka receive gareyn ama ka beergarin waxaa muhiim ah inaynu marka hore ogaano customerska ama macaamiisha deynta lagu leeyahay inaynu eegi karno sidoo kalena aynu u diri karno invoice ama qaansheegta inaan u diri karno. Waxaad samayn kartaa inaad tagtid customer menu kadibna aad tiraahdo customer center kadibna halkan wuxuu kuu soo dhigi doonaa guud ahaan macaamiisha ku diiwaan gashan kuwa lacagta lagu leeyahay akoonkoodu yahay open balance ama kuwa aan lagu lahayn intaba. Halka haddaan farta gelino halkan hadaynu eegno saddex qof aynu diiwaan gashan ama saddex macaamiil labo balance ama lacag baa lagu leeyahay midna wax lacag ah oo lagu leeyahay ama jirto. Haddaan halkan farta gelino waxaan oran karnaa customers with a open balance macaamiisha maxay balancegoodu uu yahay open ama furan yahay ama deynta lagu leeyahay. halkan ayaan ka dooran karnaa labada macaamiil marka lacag ayaa lagu leeyahay. haddii aad rabtid macaamiisha dhan waxaad oran kartaa all customers. haddaba marka aad rabtid qofka customerka inaad u dirtid warqadda invoice ama qaansheegti waxaad imaanaysaa a customer menu kadib waxaad leedahay statements ama homepage ayaan leeyahay cafwan. kadib halkan waxaa muhiim ah waa options waa statement xilliga tusaale kale warqadan la daabacayo oo kale tusaale kale ama warqadan deynta oo kale tusaale xilliga la daabacayo. statement period from waa xilligii tusaale kale waxaa leeyahay qofka customerka ah ama macaamiisheeda oo dhan eeg xilliga kowdii bishii January tusaale kale 2020 ama waxaa leeyahay 2019 ilaa iyo bishii February 20keedii symbol sida caadiga ah. ama waxaan oran kartaa bishii koowaad 2019 ilaa iyo bishii koowaad 2020 date-ka inta u dhaxaysa eeg. all customers ka dalban kartaa multiple customers baad dalban kartaa waxaa kaloo oran kartaa maxay one customer. so hal customer ma firtigeynayna kadibna muuna ayaan dalbananaa kadibna waxaan leenahay overview. kadibna haddii aynu eegno halkan waxaa ka soo baxay company-geena magaciisa macluumaadkii aan soo diiwaan gelinay haddii aad dib ugu laabataan creating company qaabka loo sameeyo halkan waxaa ka soo baxaya company-gaaga magaciisa. alright okay waxaa sidoo kale oo muhiim ah qofkan customerka ah halkan ayaa waxaa ka soo baxaya maxay lacagta lagu leeyahay. halkan waxa weeye waa cidda la biil garanayo ee warqadan loo dirayo weeyaan. marka deyntan ama transaction kani iminka ma cadda date-kii waxaa ku qoran iyo amount-kii 185. marka si lacagtan loo faahfaahiyo close baan iska oranayna kadibna halkan ku taalo show invoice item details on statement baan inta saarayna kadibna waxaan leenahay preview. haddii aan eegno 185 waxaa ku timi waa invoice waa daqiiq waa 5 kiish oo min $13.65 laba mobil oo iPhone ah oo midkiiba $510 waa $120 65 plus 120 waa 85 sidaas ayaa ku timi. kadibna waxaad leedahay print ama by email ayaa u diri kartaa. marka qaabkaas waa qaabka aad ku ogaan karto qofka customerka ah dhaqdhaqaaqiisa ama lacagta lagu leeyahay statementigiisa iyo qaabka aad warqadda invoice-ka ugu diri kartid ama aad ugu daabici kartid. haddaba marka aad rabtid inaad lacagta ka qaadi karaysid garaysid laba meelood baad tagi kartaa customer menu kadibna inaad tiraahdo maxay a receive a payment ama in adoo joogo homepage-kaaga aad dalbatid a receive payments. kadib daaqadan ayaa kusoo bixi doonta oo ah customer payment. halkan farta waa gelin kartaa macaamiishaada way kusoo bixi karayaan ama caayad ugu qoraysaa. tusaale ahaan haddaynu dalbano maxamed aadan wax transaction ah oo ina dhex maray ama deyn ah oo lagu leeyahay ma jiro customerkaasi. kadibna haddaan ku laabano munaja waxaa lagu leeyahay $185 baa lagu leeyahay. marka aragti inaad beergaraysid halkan ayaa tagta saaraysaa kadibna waxaad leedahay save and close. dabcan haddii aan soo kansalo account receivable keeni wuxuu ahaa $110 ayuu ahaa haddii aan laba jeer waxaan iminka lacagta inaga maqanin waa $25 weeye. marka hore $185 baa iyada lagu lahaa paid waan paid garaynay $25 ayaa inoo haray. waxaan kaloo samayn karnaa mar labaad waxaan tegaynaa customer menu kadibna waxaan leenahay receive payments. waxaan lacagta ku leenahay markaa xasan ayaan lacagta ku leenahay xasan faarax lacagtaan ku leenahay waa $25. haddii aad rabtid qofka customerka inuu lacagta qayb bixiyo halkanna waa ku qori kartaa tusaale kale
halkana waa ku qori kartaa adigoo waliba sheegay lacagtan qaabka aad ku qabatay ma cash ba ma check ba ma credit muxuu yahay tusaale ahaan halkan baan gelino $25 waxaan leenahay wuxuu bixiyay $10 kadib waxaan leenahay save and close dabcan haddii aan eegno waxaa soo haray account receivable keeni waa $15 oo $10 waa ka beed garaynay $15 tusaale ahaan waxaan sameyn doonaa mar labaad waxaan ku laaban doonaa customer menu kadib waxaan leenahay receive a payment $15 qof customer ka markaa waxaan sameyn doonaa wuxuu ahaa Xasan Faarax $5 waxaan ugu reebi doonaa discount $5 ma ka qaadi doonaa marka halkan ayaan tigta saaraynaa kadibna waxaan leenahay discounts markaan dalbano discount kani wuxuu ka go'ayaa faa'iidadaada ayuu laga jarayaa profit kaaga ayaa laga jarayaa qarash ahaan baan u diiwaan gelinaynaa waxaan leenahay $5 baan discount sameynay kadibna xageeba ku dhacsaa tusaale expense oo kale akoonka loo yaqaan expense soo loo abuuro akoonada hore ayaan uga soo hadalnay kadibna waxaan leenahay done kadibna waxaad dad eegtid waa $10 lacagta oo bixinayaa $5 na waa maxay waa discount kadibna waxaan leenahay save dabcan haddii aan eegno account receivable keeni waa maxay waa 0 sidoo kale haddaan tagno customer menu oo aan dalbano customer center customerska imika inoo diiwaan gashan wax lacag ah oo lagu leeyahay ma jiraan haddii aan eegno profit and loss keena reports company and financial profit and loss waxaa jira saleska aan sameeyno waa $410 cost of goods sold badeecadaha inay waxay ugu fadhiyeen $195 gross profit ka ama faa'iidada aan ka helnay waa $205 expense baa la geliyay $50 ee aan u sameynay discount marka intaynu ku kulmi doonaa casharka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.